wixii laga faa'iidayo oo faa'iido keenaya dee waa loo baahan yahay dadkii dalkii hoos buu u dhacay dhibaata ku habsatay dowlad la'aan buu muddo badan ahaa dhaqaale ma haysto dhalinyaradii shaqo la'aan baa haysta waa war la gartay in dalka maalgelin lagu sameeyo adduunkana dee investment waa wax jira waa sax in qolo maalgashato lagana faa'iido iyaguna ay wax ka faa'iidaan laakiin su-aasha la isweydiinahay waxay tahay war heshiiskani ma yahay mid cawaaqib xumo u soo wada mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ma yahay mid faa'iido lahaanshihiisa iyo lahaanshihii dalka iska lahaa uu leeyahay wixiisa inuu leeyahay oon lalaba lahayn kontraad ha lala galo hala maalgashto qayb ha laga qaato imaaraad laftigeeda hadday maalgelinayso horta 51 wixii loo sii agardarra ah waxay ahayd inay 40% qaataan ilaa muddo badan bay joogayaan 60% dadkii waddankan lahaa uu faa'iidada ka faa'iideysto midda kale wax Itoobiya horta totalba meesha soo gali kara maba ahanba waxa halka ka arkaysaa inay tahay boob iyo dhacad oo aan laga fiirsan dadka saxiixayana aysan dad iyo heelan runtii ka lahayn maanta ka qabso maxaa iiga jira ay tahay dadka iyo mustaqbalka dhalinta soo koraysana inaysan waxba u reebayn baacad saasoo nimcada u jiifto maxamed siyaad bara 100 jeer baa wax walba loola yimid waxaan faa'iido ummadan u keeni doorin wuxuu oran jiray allah ka allah waa iga bas hagaajooda ha u baqtay haday rabaan sababtoo waa lagugu qabsanaya wax hadda gaajadaada aad xor ku tahay iyo gaajo aad hadhow aad xor ku noqon doono lagugu gumaysanayo baaba dhibaato waxaaga marka gurigaaga in lagugu gumaysto waa masiibo adduun wey marka midda hadda socota oo hadda muuqata dad dhalinyaro horta ama dad badan runtii way fahmeen oo macnaha Somaliland ah wayna ka kacdoonsan yihiin laakiin dad badan oo wali aan fahmin oo u qaba maaragtay xisbiga meesha haystaa inuu aqligii aqoontiiba hayo oo uu janno u wado na waa jiraan kuwaasaa loo baahan yahay laftigooda indhaha inay furaan si fiicanna u fakaraan heshiiskana dadka hala tuso annaga laftigeenu koonfur baan nahay maxaa naga qaylisiinaya hargeysa iyo waqooyi weligay ma arag laakiin waxaan ogahay meesha hargeysa iyo maxay burco iyo berbera wixii lagu sameeyay inaan anna iseegayn baan ogahay hadday barwaaqo tahay iyo hadday shar tahayba waa hubaa marka hadday khayr tahay waa u wada yeeri lahaysaan layrtiisaana soo gaari lahayd 27 sano Puntland iyo Somaliland ba Soomaalida qofkii dhoofaaba u aadaya iyo Boorame waxa keenaysana Soomaali waa Soomaali meeshii ku nabad un baa la wada aadaya wixii khayr ku jira iyo meeshii wanaag ka socdaan la wada tagaya marka sirtaan iyo dadkan politicalka yaan la iswaalin shacabku ama koonfur ha joogo ama waqooyi ha joogo waa isku go'an yahay waa isman hurtooy wey waa isma hurto sidaa daraadeed shacabka reer Somaliland shacabka horta Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa meel ay joogaanba inay ka kacaan oo ay meesha ay macnaa ku mudaharaadaan safaaradaha labadoodaba dawladda laftigeeda iyo baarlamaanka waa inay ka kacaan meesha waa inay dadkaan maaragtay loo yeeraa safiiradooda wax laga qabtaa wasiirka ra'iisul wasaaraha khayr allah si uu hadlay laakiin hadalkii waxaan rabnaa anagu degdegaan nagu jiro waa iska dhaqaanaa Soomaali baan horta waa degdegnaa oo wixii saacad lagu kala baxaan jecel waxaan filayaa inaysan horta ka hurdaynin oo hadalkii ra'iisul wasaaruhu ka yirina inuusan uga haraynin halka hadalku ku iyo maxay tahay warqadii la qoray inay arrinta bushin inay soconayso aysan halka ku harayn baan aaminsanahay annaga shacabka waxa nala gudboon dadku waxay garba ku leeyihiin iyo madaxdu waxay ku leedahay waa shacabku waa inay muujiyaan arrintoos meesha ay ka taagan yihiin iyo daraankooda waa inay muujiyaan shacabku hadday seexdaan qof Soomaalida waxay jeceshaa wax bisirta in loo keeno dabeecadeenaba ah anigu waa u fiirsaday laakiin maanta ma ahan arrintani waa arrin muddo badan soo socotay waxaa la yiri doqonta usha agteeda ku dhufo hadday garan weydana korkeeda ku dhufo 100 jeer federaal iyo nacladna loo keenay gobolna loo qaybsho gobolba calan loo sameeyay gobolba la yiraahdo madax banaan toos loogu imow waa laga shaqeeyay maanta waxay maraysaa usha korkeena in lagu dhufto waxaana ku susaysa waana arkay runtii baarlamaanka ee maxay ahayto Somaliland dadku wada aqal xuma ma garasho wada xuma ma wada qabyaaladaysna ma wada xisbiyeysna dad mustaqbal dhaba u fakaraya ku jira Somaliland dad runtu u muuqata jira Somaliland dad xaqiiqda wajahaya ku jira Somaliland ma aha rabitaan iyo go'itaan ay rabaan oo kaliya inay tahay rabitaan iyo go'itaan waxa kasto uga weyn jiritaankooda dhabta ah uga weyn maanta Soomaaliya waa ayaga madaxu ah ayaga ugu xoog badan macnaha Soomaaliya ku darsankeedu wax dhibaato iyaga u keenay mayso
sababtoo waa waxay anytime ushooda ka qaadan karaan, waa waxay anytime iska celin karaan, waa waxay afgaranayaan, waa waxay iyagu inay ka awood badan aan ka awood badnayn, laakiin wax ka awood badan bay xarunta kusoo xaraysanayaan. maraakiib iyo hub iyo ciidanba waa la soo degsanaya. marka taas waxay dhalin doontaa afkaa juuqda gabay. dadkan hadda balada ka shaqaynayana bariya dhow bay baxayaan, way dhimanayaan ama sariirahay fuulayaan. sababta waa yeelo waqti u haray baa iska yar. hadday wad ka baxsadaanna wata tacbaan daynayn oo sariirahay ku aruuri doonaan maraan dheerayn. haddii kalena wayba dhimanayaan. maxay marka ka tageen? yay dhibka uga tageen? dhibka maanta ay hogaaminahayaan oo ay garwadeenka ka yihiin oo qalinka ku duugahayaan waayo cidda looga tagahayo. hala iswarsado dhalinyarada Somaliland iyo dhalinyarada Soomaaliyeed gooyal ay joogaanba ha iswarsadaano. yaa waa looga tagayaa dhibkan cidda looga tagaya waa dhalinyaro, waa jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socda iyo kuwa soo dhalan doona. dadkii annaga nooga tagay xorriyadda oo na u dhintay oo godka u galay oo gumaysiga la dagaalay god bay ku jiraan. abaalkoodii marka meeshii ay ka bilaabeen ay ka dagaalamayeen miyaan haddana lagu soo celinayaa? saasay abaalkoodii taas u noqday. annaga idinla hadlaynaa xataa anagu meel dheer caruun badan xataa naguma haysa, annaga faa'iido badan xataa kuma lihin. waa ilmaha iyaga iyo waxay dhalin wixii ka sadhelay wax loo reebayo, waxaan u qaylinayno, waxaan u hadlayno waa iyaga. rajo maanta Soomaaliya runta markaa idiin sheego aniga iiga jirtay shakhsiyan ma jirto. sababta aniga laftigayga horaan u batay, haye wax yar baa ii haray. intayba caga dhiganaysaaba haddaan rabo ama dhimanaya ama sariir amba fuuli maxaaba harsanba. muhiimadda laga dagaalamayo oo xaqiiqda waa dhalinyarada, waa iyo jiilka iyo kuwa tagoogtooda ku jira wey. nin walba meesha ku raaxaysanaya. dadkii waddankan hadda annagu qurbahan joogno dadka ku raaxaysanaya, dadkii ka soo shaqeeya ma joogaan, laakiin kii u dhintay baa uga tegay oo wax fiican uga tegay oo u shaqeeyey. korontada qaarba intaasaa u dhimatay, meel walba intaasaa u dhimatay, xorriyaddooda intaasaa u dhimatay. marka annagu ma gumaysigii 1960 ka hor ay u dagaalamayeen dadkeenni wayaasheen oo halkaa maarata ay nagu soo gaarsiiyeen oo sharafta iyo cirdi noo yeeleen, ma bartii inaan ku celinaan rabna oo weliba gumaysi madow ku noqono oo weliba gumaysi madow hor fadhiisano. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi Ethiopia lagu qabsanaya Soomaaliya. ilaahay magaciisaan ku dhaartay waa gadaashiisa waxaan oo dhan oo kale baana ku talagal. carab diinna islaamna lama aha, ilaahayna ma yaqaanaan. runta haddaa idiin sheegno islaam baa u xegsanaysaan. wallaahi se islaam nala ahayn oo ilaahay isa ka baqayn 30 sana baaba'ayna hadday islaan yihiin. marka ay riboorradooda tagno Soomaaliya baasaboorkooda sidii maartay fatantii oo kale ayaa layn loo geeyay. fatantii oo kale halkaa loogu hor jiray. qofka Soomaaliga xaraga ku mara waa qof baasaboor ajaanib wato ahaa oo weliba ay kuubsanayaan ku quuri la yihiin xataa oo kugu soo qamaamayaan. war hadday islaan yihiin maxay wax noogu qaban waayeen? islaamnimadooda xagga naga dhig. waa xasad aan horeyna u socon. islaamnimo aan ahayn carab baa hoostooda lagu cunay, islaamkii baa hoostooda lagu cunay, Falastiin baa hoostooda lagu cunay, cid walbaa hoostooda lagu cunay. dhagax tuurkii Falastiin baa maanta nalala maagan yahay. hadday dhalinyaro dad waxaa iska jira xanuunsan oo qabiil ka buuxo. war qalibiga caadifadaan iska dega. qabiil iyo waxaan sheegayna adduunku nooma yaqaan, annagu qolob un baan ka nahay. ciddana kala gadaysa qoladaasoon u nahay, unisi inayna kala wiiqaan unbay doonayaan. laakiin isku soo wado cagaha markay meesha soo dhigaan wallaahi oo bilaahi taala hal baan u nahay, hal shilin baan ka nahay. sidaan adduunka hal shilin uga nahay un baan cadow oo dhan halkaa shilin baan ugu nahay. xabiib iyo xaasid ba shilinkaasaan u nahay. haddaan shilin nahay qaar ba waxay ku leeyihin maxaa ka quseeya, maxay dee Somaliland uga hadlaysaa oo Somaliland wixiisa barbare soo gala ani may deynayaan, ma boosaasay deynayaan, ma xamar bay deynayaan, ma hobyay deynayaan, ma kismaayay deynayaan. wallaahi waa maya, waa bilaahi waa maya, waa tallaahi waa maya. ha ka yaabin. waxa waa slow killing baa la dhahay. slow killing tartiib baa lagu dilayaa. mid baa la qabsanaya, mid kale la qabsanaya. slow killing kaasaad ku jiraysaa adoo dhaguu ku taagan qaylin unbaa maalba lagu qabsanaya. tala maantay taagan tahay. wallaahi maalinkii dhagax tuur iyo aswaal maantay taagan tahay. dhalinyarada iyo shacabka reer Somaliland iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo aan ka baryaynaa inay fahmaan xaqiiqda jirta. Soomaali baan cadow noo ahay oo waa been iyo hadhudho wey. waa wallaahi inaysan waxba ka jirin, oo bilaahi waxba ka jirin. waa siyaasad lagu awrkacsado. Soomaaliland oo dhanna waa joogtaa. shacabka Somalilandna koonfur waa joogaan, shacabka koonfureedna Somaliland waa joogaan. weligoodna waa wada joogi jireen, weligoodna waa wada joogi doonaan. waana isdhalan, waana isu dhexeen, mana kala maarmayaan. xaqiiqda horta taa weeye oo dadka beenta iyo laysugu abuurahayo. iyo 60kii war 60kii waxaad weyday been bay ahaayeenba, waxba kaama maqnay. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xorriyadoo dhan baad waayeysaa. 60 waxaad horta kala doorataba inaad waayi. wallaahi waxaad kala doorataan baad waayeysaan. wax idinka maqan ma leh.
dalkan Soomaaliya masiiba ku habsatay waa isdagaaleen qabyaalad ba isku dagaaleen wax koonfur iyo horta la yiraahdo waqooyi oo Soomaaliya isku qabsatay horta ma jirto halka ishu oo taagnaa wuxuu ahaa Somaliland dadka daga oo macnaa waqooyi daga oo ka xoroobay gumaysiga Ingiriiska xorriyadda alla ka siiyay xabiibnimay la soo fududaadeen waan aaminsanahay taas sababta qofku markuu xisaabtamin ee isu ka dhiibo waa xabiibnimo dadka xabiibka ahana maanta Soomaaliya waa ka dhamaadeen waxay uga dhamaadeen Soomaalida qabaa'ilkii dagaalkooda wuxuu ku beesgareysan yahay ama hub ha haysteen ama midi ha haysteen dhaqankooda soo jireenka qolada qofka waxgalka bay ka ugaarsadaan marka waxa ka dhamaaday dadkii waxgalka ahaa waxa laga yaabaa qofka Soomaalida boqolkii qof in hal qof ama kunkii qof hal qof oo aqli leh oo sidii saxda ah u fakariyo in laga helo marka qofka waa laga tambadinaya waxa ku dhex milmayo ka badan inta aqligoodu xun yahay inta sida xun u fakaraysa aad qaati wax qabyaaladaysan wax caatifadu hayso waxaas ka badan dadka inta yaroo nadiifka kuwaana caburinaya sababtoo ah waxa way wax galkayba iska dilaanba qofka wax tarkaaba iska dilaan indha garadka iska dilaan marka maanta waxay taagan tahay yaa Soomaaliya taagan tahay wallahi inaysan taagnayn Somaliland iyo Soomaali koonfur midna inaysan taagnayn Djibouti baan col ahayn oo kaliga shalaan baa col noo ahayn oo maxad NFD baan col ahayn qof kasta oo Soomaaliya meesha kan kala laga qabto wallahi way xanuunsanaysaa anugu de ma sheegin siyaasi caloosh u shaqaysta oo dhiiga shacabka Soomaaliyeed iyo baabooda iyo kala dulaalka asaga macnaatay shisheeyaha inuu u kala dulaalo jecel de ka waligiis waa jiray kaasana maanta hoggaanku noocaasana hoggaanka in badan noo haya noola soo hayay laakiin wallahi shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan way isu damqanayaan wayna dhibaysaa kan kala dhibka ku yimaada marka macnaheedu ma ahan koonfur baad ka soo jeedaa maxaad waqooyi uga hadlaysaa waqooyi waa dhulkayagii waa ka hadlayaa caysho milix baan nahay 100 qof anoo waligay xataa tagin ayaan halkan 100 qof oo maartay Soomaaliland ka soo jeeda ayaan badarka wada cunaa waa saaxiibaan nahay Soomaali walbaan ka jecelahay inay dhib gaar ma jeceli maanta daan u baahdo inaan gurigooda tagayo sidaan doon ugu raaxaysanay waan aaminsanahay marka taasi waa inaan kala maarmin inaan isku qof nahay way macnaheedu marka siyaasadan iyo waxaan nagu kala gaday inta meesha la iska dhigo haddana waa maqlay dakadii xataa meeshii shaqada la kordhin lahaa bal fiiriya inaan horumar meeshaan laga soo wadin baa lagu sheegaya oo tartiib rab in xididada loo siibo shaqaali dalkan asaga iska baabaayan wax soo saar ka lahayn meel wax ka soo galayno ciidana aqoonsano aan macnaha meel wax ka soo saar ka lahayn dakadii yartaada indhaha u ahayd waatan hadda intaas oo shaqaale dibadda la soo dhigay oo maxay tahay macnaheedu kuma baahni way dibadda shaqaale laga keensanaya saasa elimination baa tartiib lagu sameeyay waa slow killing way tartiib baa lagu baabiinay meesha aradina mar dambe adaab adiga sharci ka sii hayaan soo galeen sal adiga sii hayaan wallahi bari soo galeen oo billahi tallaah permission iyo call iyo ma imaan karaa iyo oo waliba waxay rabaan inay ku yeeriyaan ma aad wax kala sheegi karin bay ku haraysaa wallahi hadaan laga maanta hadaan laga dhaqaaqin oo maanta aan laga diirin oo maanta aan laga dhiidhiyin wallahi halkaas ku socotaa Soomaaliya marka beenta iyo huwaada iyo reehbel iyo Soomaali cadowna beenta iska daaya la idin sheegay iska ilooba xoolihiina dhaxsada reer Somaliland shacabka Somaliland u istaaga dekada barbara shacabka Soomaaliyeed meel ay joogan dal iyo dekadaheena loo istaago boosaaso iyo kuwa kale waxay ku go'ayeen barbara wixii laga yeelo waa wallahi inay wax kale ku go'onaaneen meesha ay taasi martay wada marayaan war anagu Soomaali manihin iyo waxaas waa faataa dhug Soomaali baa tahay hantidan Soomaali baa wada leh Soomaali baa iska wada leh soo dhul Ilaahay ku abuuray Soomaali ka dhigay weeye waxa ka halaabana Soomaali dhan bay ka halaabayaan waxa u hagaagana Soomaali dhan bay u hagaagayaan cadow hadduu isbarbare qabsado boosaasana waa haystaa tan ku xigtana wuu sii haysanay ilaa raaska mool waa qabsanaya barya mala ama ba lagu kala gorgorta mudag sidii barbaraamka awalba balaanku ah Kenya iyo Ethiopia ay tiraada anna Kenya intaydan goost iyagoo qolo kale ayadana fita ka riixayso waa normal waa waxaan shaki ku jirin waa waxaan daah saareen aliin hadduu alla yahay dadka caadifaysan oo qabyaalada dhinac iska dhiga qabyaaladan masiibada qad dhinac inta iska dhigtiin bal horta war helaaba tala helu yiri dekada horta faraha lagu soo celiyo war dekada faraha lagu soo celiyo koonfurada dekadii kugu haysato xoolo iga sii kula ma ahan adigu ilmaha mustaqbal kuwa mayeeraanka iyo kuwa uurka ku jira iyo kuwa hadda aan advocate-ka ayagu aan macnaha advocacy isku samayn karin oo damsalaf aan hal soo hadli karin oo self represent ayagu aan samayn karin yaa loo baahan in loo speak out loo sameeyo in loo hadlo kuwaas weey in kuwa loo advocate gareeyo weey macnaha waxaan u hadlayno waa ilmaha yaga soo shacabka reer Somaliland
oo mayeeraanka ah kuwa caloosh iyo kuwa tubta ku jira labadaba iyo kuwa yaryar oo maanta maxay dugsiyada dhiganaya way waxa loo dagaalamo la rabo waa waxa dhibku ayagu qabsanayaan nimankan dhibka ka shaqeynaya dhibkan they will move forward way ka tagayaan aakhira meesha aadayaan ilaahay baa ogay oo xisaabin doona laakiin 100% adduunyada silcaas ayagu ma arki doonaan sababta ama way dhinteen ama waa doqoomay xoolaha xadeen ba dibadaas ku dhinimanayaan ma fahamti ilmahoodana gumaysi bay meel xoolo bay u geynayaan laakiin xoolo kasto ay geeyaan dhul shisheeye bay horta geeyaan cunugooda iyo wiilkooda iyo ku awowgayahana shisheeye unbuu ka yahay iyo immigrant iyo minority buu ka yahay waxna kama aha meel kasta lacag kasta lahow Soomaali unbuu qofkaas lacagta ugu faanfaani karaa laakiin cid kale meeshuu joogo wuxuu ka yahay male oo lacaabihi lacagta xaaraanta u geeyay ama ugu abuuray oo mid uga dhaxlo wallaahi aysan natiijo yeelanayn faa'iidana aysan ka keenayn waxna aysan weligood ka noqonayn war dhulkooda dadka dhulkooda ha loo caymiyo war ilmaha masdakada barbara ha loo caymiyo war dhulkooda dadku macnaha markay hanti haystaan oo khayraad haystaan way gorgortami karaan way u suuq tagi karaan waxooda maalgelinta laftigeedu suuq tag bay rabtaa waxay rabtaa in loo gorgortamo in la macnaha meesha ku faa'iido badan aan raacdin mustaqbalka iyo future-ka dalkaana mustaqbal waxa gorgortanku waa inuu noqdaa mustaqbalka iyo future-ka tomorrow waa inuu noqdaa ma ahusan maanta maxaad jeebka igu shubaysaa inuu noqdo maaha waa intaa laga fiirsadaa shacabka soo reer Somaliland waa inay baarlamaankooda dabada ku dhagaan baarlamaanku waa inuu xukuumadda dabada ku dhagaa waa in la xisaabtamaa waa in dekada faraha lagu soo celiyaa bataatan bal ninkii wax ku leeyahay waxbuu ku leeyahay hadduu wax ku leeyahay dalka maraxane maalgashi buu ugu leeyahay dayn buu ugu leeyahay ninkaas imaaraad haddaan ka soo qaado dayn buu imaaraad ugu leeyahay gashtay dayntiisiina waxaan ku heshiinaynaa saan u siin lahaa laakiin waxayga ma lahaan karo anytime waa inaan dhehla oran karaa iskaga tag wadankayga dayntaadi baad ugu leedahay waa dayntaadaan ku siinaya laakiin inuu anigu aan noqdo qofkii wax daynsaday oo kale inaan noqdo oo aniga macnaha banaanka la iga saaro si doonta la iga yeelo bari la igu qabsado hadda waxa mas'uuliyadeeda cidda qaadanaysa waa cidda maanta faraha meesha kula jirta oo maamulka haysa oo qalinkooda maanta wax ku duugayo ninka maanta Soomaali kala saarayo lana Muqdisho waxba uma ogin Soomaaliland baan aqoonsaday wallahi oo billahi taala 7 sano muxuu ku aqoonsan waay barbarana way taalay ujeedka ku dambeeya sheega barbara meeshaan ku taalay cirka kama soo dhicin haddana ma dhalan imaaraadna hadda bud adduunka kuma soo oran waa jiray 7 sano muxuu ku aqoonsan waay maxaa Soomaaliya soo noqonayso arkaa wax kale ma aha wuxuu arkaa dayax iyo nuur soo ifay wuxuu arkaa rajo Soomaaliyeed cabsi uu qabo weeye carab cabsi way naga qabtaa Soomaaliya isku duuban nin hawaysanay Ilaahay mooyo inuu jirin bay isoo yihiin Soomaaliya mida in adduunka meesha rabta ka gaari karto way og yihiin waana ka islaamnimo fiicanay anagu haddaan waxaylo waa sadaqaysanaa waxbaan bixinaa waa iyagu waxay noo keeneen 12 madhabood oo adiim ah oo kala firqa ah oo maskaxda nologa qabsaday oo anaga isugu kayalaayeen oo arhuurtayda ku baabiyeen oo macay qof gurigiiba 3 madhabood 5 madhabood ka kala hayso waxaan ahay carab nagu soo saa'idin قال بابا هان لوبيا دور ربي ديارات نقو قادو غريودي اللي حري ان خوغا يرو حتى لير ان ku joogna aan abid sigaar noolahay abid meelna waaba nala qabaataas islaamnimada ma wadaagno kan islaamnimo wadaagna saan noo galaya tarxiilka iyo dhibaatada ay dadka ay ku hayaan iyo jeelashooda iyo sircudilada Ilaahay baa sheegi kara marka isku soo wada duub dekada marbara wixii ku dhaca Soomaaliya dhan bay ku dhaceen dibkii soo gaaran Soomaaliya dhan buu soo gaaray maalgashigu ceeb ma ahan dhibaatana ma ahan horumarna waa laga maarmaan in la helo laakiin waa in heshiiska laga fiirsado waa in heshiisku waadax yahay waa in heshiiska la soo bandhigo waa in heshiiska laga doodo waa in heshiiska macnaha ma aha maanta kaliya kuwa barito wax loo reebo caruurta barito waxaan wax u dhaawacayni oo dhaawac u geysanay waa inuu noqdaa midaan dalkan halis gelinayn macnaha xorriyadiisa iyo madax banaanidiisa waa inuu noqdaa oo halis kasto oo maaragtay lagu qabsan karo waa inay macnaha meesha ka maqan tahay laakiin wada kasto oo halis ku ah waa in laga joojiyaa oo aan macnaha cilaaqaadkan heblaayana aqoonsaday oo aan macnaha noqdo qof jannadii galay aadan noqon oo aadan macnaha isdhiibin weeye macnaheedu marka waxaan kula dardaarmina shacabka horta Soomaaliya meel ay joogaan waxa naga hadlinaysa waa wax isugu kaaya jira waa wax isugu kaaya yaala ma ahan inaan meesha tagno ma ahan inaan cunto ka cunno ma ahan inaan hargeysa tago ma ahan inaan hargeysa aqaano ma aha ujeedadu Ilaahay baa Soomaaliya iga dhigay gayigaasna Ilaahay baa iga dhaliyay soo magacaasa ina wada walaajiya Ilaahay baa naga wada dhigay adna ma dooran Allah nagu kulmiyay
wixii dhibaatana soo gaaran waa u simannahay dhaafna waa u simannahay sidaa daraaddeed carab hadday baraka leedahay 27 sana laga arki lahaa kuwii walaalahooda meesha lagu gumaadahaya waa laga ka arki lahaa horta carab baa waxidiin ah xagga iska ilooba been ha isu sheeginina dream been ina soo akhrisaan waa laga fiican yahay cadawgaagu caana macbu ku siiya horaa loo yiri laaluushka laydin siinayay xoogaa beenta laydinku kala galay idinku baa cadow laydinku yahay sidii laydin baabiinay sidii laydin qabsan lahaa baa laga hadlayaa marka waxaan u soo jeedinayaa maamulka Iban Somaliland caqligana mala'an cadifadu waa meesheeda laakiin caqliga kama marne dadku ma wada caqli leh hal iyo laba haday maran yihiin inta kala caqli leh baarlamaankooda caqliga kama marne arrintan dib ha loogu noqdo dalkan cadawga lagu soo hogaaminaya maanta ha laga qabto cadawgan ilmaha dambe oo iyo ku ciribtooda dambe yaysan ida habaarin qabriga yaa laydinku cadaabin qabriga yaa laydinku soo habaarin ilmaha dambe wuxuu reeba ilmaha yarkaa mustaqbalkooda ha ku ciyaarin cadow ha u soo gelin gacanta Itoobiya cadow bay noo tahay carab cadow buu noo yahay annagu walaalaan nahay Soomaali iyaga walaalaa ha isdileen ha isdaayeen waxba alla isugu daray ma kala maarmayaan halkan markuu ka qaxo halkaas kale uu qaxayo meesha nabadda kii ku dilay gurigiisa u qaxaysaa oo seexanaysa wax ka cunaysa Soomaali dadka kala maarmo ma ahan xaqiiqda markay saan loo eego wax kala maarmo iyo wax kala biskoona midna oo meel ku kala haraya ma aha sida daraadeed ilaahay ha laga cabsado oo waxaan idin leenahay caadifada inta xagga la iska dhigo iyo Soomaali koonfur baa waxay la yeeshay koonfur Soomaalideeda horta Soomaali koonfur wax kuma yeelin waqooyi hada toon waqooyi koonfur meel wax isku yeelaan ma jirto marka xaqiiqda laga hadlo dhalinyarada yarna waxa maskaxdooda ka buuxa koonfur qadaad weyn war meeshan isaaq iyo hawiye shalay waa isla socdeen oo irba isla ahaayeen oo dawladda maxamed saad baraha lagu riday runta marka la isu sheego weeye dhulbaanti isaaq waa isbaabiyeen hawiye dhexdiisa baa isbaabiyey daaro dhexdiisa baa isbaabiyey isaaq baa waxba isu reeban oo isbaabiyey oo laba daamad kala noqday waxa yaana been isu sheegin Soomaali waa iswada dishay godobiirsi bay baabiyeen waxaas inta xagga dhigno waxaan maqlay dhulka dhulbaantaana waxa beebayaal baa loo safay colaada Soomaaliland diyaarad baa u safan waxa inta iska tuurtaan gaarbis ku hurda colaad faa'iido ma ka saacidisee oo ilaahay darti isku cafisaan Soomaalinimadina iyo dalkiina midnimadiina u soo jeesta oo cadawgiina meel ka soo wada noqdo cadawgiina idin kala hiifaya oo idin kala gatay oo idin kala baabiinaya aliin haduu alla yahay cadawgiina u midooba dadkan maanta hoggaanka haya wax badan ma sii joogi doonaan laakiin waxa ay maanta sameeyaan waxay impact ku yeelanaysaa oo macnaha ay natiijo ku yeelanaysaa iyo saameyn mustaqbalka iyo caruurteerka oo dhalinyarada maanta iyo kuwa dhalan doona taa iyadoo laga fiirsanayo caruurta waxa loo hambeeyo meel xun yaan lagu furin geedigan raran yaan meel xun lagu furin xerada aad ka guurayso iyo xerada aad u guurayso waa in maamulku kala fiirsada Somaliland waa inay ka fiirsataa xerada ay ka guurayso iyo mid ay u guurayso xerada ay ka guurayso waa mid ay ka adag tahay waa mid ay ku awood tahay waa mid ay ka awood badan tahay laakiin xerada ay u guurayso oo reerkeeda u rarayso ha ka fiirsato waa xero ka xoog badan barina aysan xorriyad heli doonin ilmaha yarka marka meel xun yaan looga tagin mustaqbal xun yaan loo soo jiidin Soomaaliya furaha macnaha gumaysiga ha u noqonina Soomaaliya gumaysi maanta barbaray ku xiran tahay Soomaaliya oo dhan inay xorriyad ku noolaato iyo inay gumaysi gasho labadaba maanta barbaray ku xiran tahay taariikhdan way galayaan cid gumaysi maanta horseeda qabrigana waa lagu nacladaya taariikhdan waligeed waa xusaysaa marka Soomaaliya oo xora maanta gumaysiyan lagu celinin barbara oo dadkii lahaa ay gaajo u baqtiyayaan yaan carab iyo Itoobiya qabsan oo waliba carabku waa dharagsan yahay Itoobiya gaajaysan baa loo qabanaya oo u ooman bad oo rimanayd oo waligeed u dhalaysay bad oo siyaad bar ka weyday wada ay ka soo gasho yaa burburkii uga faa'iideysay intay kala burburisay intaasna wadaday raadinaysa maraakiib bay u gadatay maraakiib qof aan bad lahayn maraakiib gatay qof aan bad lahayn wasiir badad magacawday war xagaa u socdaa waxbuu isku ogyahay waxbuu isku hantiyay intaasoo markab kharashka ku baxaya kharash yar ma aha sababtu inta u gatay maxay tahay sababtu inta u gatay waxbuu isku ogyahay waxbuu isku ogyahay barwaaqo isku ogyahay wuxuu ogyahay meel uu ka faa'iideysanayo oo wadadeedii furaheedii halay oo aan waligood midnimo midoobi karin oo waligood col ah oo dab isugu dhiibay oo maskaxda ka fariistay ma garad oo qori dab isugu dhiibay buu ogyahay inuu ka dhex faa'iideysanayo dhexdiis malayga ka guranaya maraakiib yeelan ma hayaan ciidan bad ma leh waxaan ku waa loogu talagalay
marka maantay ayay noo dagan tahay. maantay haddaan fahmi weynana farahena waa ka baxday. ma ahan in berbera ay maanta ku ekaanaysa dhibkii qabsada. wallaahuse berbera ku ekaanayn oo bilaahuse ku ekaanayn oo isaaq ku ekaanayn oo somaliland ku ekaanayn. waa tii la eedaa wixii soo gala berbera boosaasay joogaan, hobyay joogaan, kismaayo xamar bay joogaan, baraa way joogaan, kismaayo joogaan. waa saas daadku waxa ku qaada wey. maraakiib baa lala soo galaya ciidana oo hubaysan oo cidaysan kaa xoog badan kaatal maxaad qaban bal xageed wax ka qaban. Soomaaliya markay talab ku eg tahay markay eg tahay qabasho leedahay. maanta qabasho leedahay berbera iyo Soomaaliya maanta qabasho leeyihiin. berbera iyo boosaaso iyo Soomaaliya dhanba maanta qabasho leeyihiin. heshiiska haddayna maal gashanayaan waa in la turxaan bixiyaa. waa inayna heshiisyadii ummadu gali jireen oo qofku lahaanshihiisa oo marna mulki guurayn. waa inay horta mulkigu Soomaaliya tahay oo mulkiila iyagu ay yihiin. qofka maal gashanayana in la gorgortamo intaan igu maal gasho intaan ku siinaya. shaqaalahayga aniga ka shaqeynaya waddanka ilaadaa u baahan oo waddankaagii adigu lacagtaas aad leedahay dakada ka soo baxda waxaad kala soo degaysa intaad ku soo degsanaysa adiga ku taala. laakiin inaad tiraa iyagu ku maamulaan oo ay adiga yatiin kaa dhigaan oo laba qolof hadha isku kaa garabsato oo berina sheerka laga iibiyo amxaaro oo la yidhahdo amxaara laga iibiyey oo haddii la raban amxaaro ay tiraahdo maxay waxaan ka iibiyey yuhuud baan ka iibiyey ciddii doona laga iibin karo oo saa lagugu qabsan karo. hadda idinku haysu looginina indhaha lama la'a dadkuna caqliga ma la'a. sidaa daraaddeed yaan caadifada yartaa iyo qadaad weyn iyo koonfur iyo baa xasadkeena iyo waa beentaasi. wallaahi waa been tii runtahay baan weli la arag. runtii baan weli la arag. xorriyadda maanta la haystay yaan la iska qaadin. heshiiskiina iyo xoolihiina dhacsada. haddaad xor tahay ood gaajo u dhimato geeridu mar bay leedahay. laakiin haddaad xor tahay oo digirtaada xorriyad ku cunta hataa waa daw waa nimco. laakiin markaad xataa inta maxay tahay gumaysigu xataa hadduu dharga kuu buuxsho ciil baadan la cunayn wallaahi iyo ciil ilaahay baan ku dhartay meelu kaa maraad garan waayeysaa. gumaysi baynaa arkin. marka dhalinyarada kacsan oo dhan gumaysi weligood ma arag moogta. dhul xorriyaday ku dhasheen waxaa la qabadsiiyoo laga buuxiyey walaalkaabaa cadow ku ah taasid koonfur baa cadow ku ah intaasay aaminsan yihiin. war waxaa waxba kama jiraan. war waxaas run ma ahan. war allihin hadduu alla yahay waxaad dhacsanaysaan dhacsada koonfur waxba inkuma haysatee waxna baddaan berbera kama rabtee 100 badoo kale haystaane. laakiin cadowaan ayaga iyo idinka kale aqoon baa soo gelaya. intaa laga dagaalamanaya waa intaas. inaad munaafacad heshaan waa rabnaa laakiin heshiiska iska ilaaliya. heshiiskan la sheegayo oo macnaha 19% iyo Ethiopia waxaa meesha kula hayn siiyey horta iska ilaaliya. sheer la gadi karaana inay haddii la gadanayo qolada iskale waa inay gadataa oo Soomaaliya no matter what. hadday leeyihiin sheerka ama naga gata ama waa wareejinaynaa ma dhici karto taas because waa nida waa wada la falayo oo la leeyahay sheerkii naga gata adigoon lacag haysan macalla. haddaad naga gado qolo kale oo lacagtina siinaysaan ka gadaynaa. taa ujeedadeedu waxa weeye marka hore heshiiskaas waa inaad macnaha dhidibada loo aasaa oo la yidhahdaa no matter what anytime haddaad doonaysa inaad ka baxdo gurigu wuxuu kusoo noqoyaa ciddii iska lahayd. lacagtaadana waad suganaysaa sidii loogu talagalay ama waad shaqaysanaysaa oo sheerkaagii baad sidii u haysanaysaa. haddaadan sheerkaagii ka baxdidna lacagtaadii tartiib baa lagu siinaya. laakiin sheerkii waxaad ka gadi kartid oo kale oon annaga ahayn dhulka iskale ma jiro. horta heshiisku waa in wax buuxa oo nidaam lahaanshaha oo dhab ah oo qof walba mar walba lahaanshaha berbera dadka iskale ay ku soo celinayso waa inuu meesha ku jiraa. laakiin haddaan wax qaybsanay oo mid konton iyo kow leeyahay iga badan yahay oo midaan waxba shilin waxba aanta ana ka helayno lagooyo ciidan iyo inuu ugu hub igu soo urursado aniga qabsado waxaan ahay ana ka helay 19 ka leeyahay oo ninba ninku rabo hadduu rabo leeyahay oo Ethiopia ii celinaysa lacagtu aan ka gaday oo adiga aan labadii Ethiopia markay 19 iyo konton isku darsatay meeqay noqotay 170 nin kale maxaad kula hadli kartaa meeshaas maxaad adigu ka noqonaysaa. isuga bateriga bay ka dhacayeen warba ya kaad bal aan bateriga ku celiyo.